بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا عشركاني برشادة لغة بايثون. waxaan kasoo sheekeynay programming maxay tahay, waxaan kaloo kasoo sheekeynay types of programming languages, high level language, assembly language iyo machine language. waxaan ka sheekeynaa casharkeena maanta luqadda Python, featureskeeda iyo sifaadkeeda iyo waxyaabaha loo isticmaalo ayaan wax ka sheegi doonaa hadduu alla raaco. Python waxaa laga yaabaa dadka qaar inay isdhahaan waa luqad cusub maadaama ay sanadahan dambe ay aad u soo shaac baxday. luqadan ma cusbo, waxaa markii ugu horeysay la sameeyay yaa lahaa 1989kii, taasoo ka dhigaysa luqado badan oo waaweyn sida C#, Visual Basic, .NET versionska dambe, Java, luqadahaas iyo kuwa lamida inay ka horeysay. waxaa laakiin ay aad u soo caan baxday xilliyadan dambe oo waxyaabahan machine learningka iyo data science-ka iyo aad loogu isticmaalay ay aad u soo xoogeysteen. luqadan Python sifaadkeeda waxa ku ugu muhiimsan waxaa kamid ah luqadan waa high level language. high level language marka luqadaha qaybahooda kasoo sheekeynay waxaan dhahnay waa English like statements lagu qoraa, waa wax ay dadku fahmi karaan oo luqadaha aan wax ku programmin oo dhan high level languages ayaa la dhahaa. luqadahaas ayay kamid tahay. waxyaabaha ay luqadan ku fiican tahay waxaa kamid ah inay tahay luqad ka fudud luqadaha kale. waa simple language la dhahaa. qoristeedu way fududahay. waxyaabo badan oo luqadaha kale ay ku adag yihiin iyadu way fududeysaa. marka waliba qofku markuu ku cusub yahay programmingkana aad ay u soo dhaweynaysaa. qofkii luqado kale yaqaanana wuxuu dareemayaa in wax badan luqadihii kale qaab uu ku gaari jiray inuu si fudud halkan uu ku gaarayo. anigu luqado badan ayaan arkay, waxaan qirayaa inuu arrinkaas uu true yahay, uu run yahay ayaan qirayaa, oo ay wax badan luqadihii kale ka fududahay kana macaan tahay barashadeeda iyo isticmaalkeeda. luqadan waa open source oo dabcan waa free. qofkii raba ayaa soo degsan karo, qofkii raba ayaa isticmaali karo, waxba lacag kaagama xirno. waxa kale ay ku fiican tahay luqadan waxay leedahay libraries aad u tiro badan. luqadu markii ay shaqo qabanayso mar walba waxaa soo baxaya wax cusub, sidee loo gaaraa ama sidee loo qabtaa. waxay leedahay community huge ah, aad dad isugu xiran oo aad u badan oo adduunka oo dhan jooga oo mar walba wax ku soo kordhiyo. marka waxay helaysaa wax kasto sidee loo sameeyaa. waxay helaysaa waxay leedahay library waa file diyaarsano aad markaa rabto ku darsan karto oo isticmaali kartid. marka libraries aad u tiro badan ayay leedahay. sidoo kale waxay leedahay resources kale oo tiro badan oo tusaalahan haddii waxa aad aqoonayso inaad internet ka raadin karto hebel see loo sameeyaa iyo hebel see lagu helaa, inaad caawin badan helaysid ayay sidoo kale iyaduna ku fiican tahay. luqadan waxaa la dhahaa waa cross platform, kuma xirno hal operating system sida Windows ama mid lamida. operating system ka rabto ayaa ku isticmaali kartaa, dhammaantoodna featureski iyo functionality waa ku heli doontaa. luqadan waxaa lagu sameeyaa oo lagu sameyn karaa any type of application, nooc walba application aad rabto. hadduu ahaan lahaa desktop application, hadduu ahaan lahaa web application, hadduu ahaan lahaa graphical user interface GUI application ah, haddii uu ahaan lahaa games. waxyaabaha aadka loogu isticmaalo lately waxaa aadkan u soo caan bixiyay ka mid ah data science iyo data analysis, machine learning, artificial intelligence. meelahaas ayaa aad loogu isticmaalaa oo aad ugu xoogan tahay. dadka isticmaalana hadda ay aadka ugu badan yihiin, laakiin sidaan sheegnay kuwii kale oo dhanna waa lagu isticmaali karaa. Python waxaa lagu sheegaa inay tahay luqadda ugu horeyso ama ugu isticmaalka badan ama ugu fiican luqadaha programming languageska. tusaale haddaan internetka weydiino best programming languages waxaan fiirinaynaa waxa uu soo saaro. haddaa u fiiris linki ugu horeeya wuxuu ku leeyahay Python ayaa number 1 waa furaynaa, waa fiirinaynaa. haddaa fiiris linkii koowaad wuxuu ku leeyahay best programming language to learn in 2020. luqadda ugu fiican ee 2020 aan baran lahayd number 1 Python ayaa ah. haddaa sii wado luqado kale kuu sheegi doonaa. dabcan Java ayaa 2 ah. 3 wuxuu ku leeyahay JavaScript iyo TypeScript. haddii aan sii wadno linkiyada kale, haddaa fiirisa halkan link kale ka qoran 10 luqadood ee ugu dalabka ugu dhimaaniga badan 2020. haddii aad fiiriso mar kale kaalinta koobaad Python ayaa halkan haddana la siinayaa. haddii aan sii wado linkii ku xigo again haddana wuxuu ku leeyahay 10 best programming language to learn
si shaqo loogu helo iyadana haddii aan fiirino waxaa mar kale kaalinta koowaad uu gelinayaa Python. haddii aan sii wadno the 9 best programming languages again mar kale kan aan fiirino ma aqaan wuxuu u diidan yahay aan fiiriyo kan ku xigo linkii kor waa ii furmi waaye marka haddaa fiirsan kanna wuxuu ku leeyahay Python ayaa kow ah dhammaantood haddii aan fiirino ama kow ama laba ama saddex intii aan arki jiray safka hore ayay ku jirtaa Python, JavaScript, Java sidaas oo kale ayuu ku leeyahay waad jaabi kartaa marka dhammaantood linkskii ugu badnaa waxa uu ku tusayaa in luqadda Python ama ay tahay kow ama labo inta hadda aan fiirino waxaan umaleynaa kow ayay wada gelinayaan taas waxay ku tusaysaa marka xilligan qofkii raba inuu Python barto inay xilligii ugu habboonaa uu baran lahaa ay tahay haddii aan sidoo kale fiirino yaa isticmaalo Python who uses Python ayaan leeyahay yaa Python isticmaalo shirkadaha isticmaalo oo kale haddaa fiirso maqaalka ugu horreeya wuxuu ku leeyahay Intel, Cisco, HP, Seagate, Qualcomm iyo IBM use Python for hardware testing wuxuu isticmaalaa hardware testing shirkadahan kale JP Morgan Chase, UBS, Getco iyo waxay ku leeyahay isagana Python wuxuu isticmaalaa for financial market forecasting NASA iyo shirkadahan kale iyagana use Python for scientific programming tasks iRobot use Python to develop commercial robotic vacuum cleaners iyo wixii la midka waa sii fiirin kartaa shirkado badan oo Facebook iyo Instagram iyo Google iyo Quora iyo Dropbox iyo NASA iyo ay ka mid yihiin ayaa isticmaalo ayaa la dhahaa taas waxay ku tusinaysaa luqadda aad u xoog badan inay tahay waxaan rajaynayaa insha Allah inaad wax badan ku qabsan doonto xilliga ugu habboonaya barleed ayaa la joogaa waa halkaas ayaan kasii wadi doonaa xiisadeena xigta duwalla aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh